Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaw channelkeena Baro Shaybaar oo aad ka heli doonto macluumaad badan oo la xiriira cilmiga shaybaarka. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cali Caamir. Waxaan jeclahay inaan halkan kugu soo gudbiyo casharro musalsalo ah oo la xiriira waxyaabaha shaybaarka iyo waxyaabaha sida loo baaro. Dhammaan ardayda danaynaysa waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan. Casharkan ugu horeeya aan halkan kusoo gudbin doono insha Allah taala wuxuu noqon doonaa sida loo testgareeyo ama loo baaro malaariyada. Maadaama ay tahay cudur dilaa ah oo dhibaato badan. Malaariyada marka hore sida testi loogu sameeyo waxyaabo badan ayaa laga baaraa markii la rabo in laga testgareeyo malaariyada. Ilaa iyo 6 qodob ayaa la adeegsadaa si loo testgareeyo malaariyada. Ugu horeyn waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo thick and thin film. Thick and thin film kaasoo ah inaad laba slide inta soo qaado midna aad thick ku sameyso filmka marka aad sameynayso midna aad thin ku sameyso oo macnaheedu loola jeedo marna aad dhiigga mid aad u khafiif uga dhigayso midna aad ku badinayso. Kaasoo ah midka ugu caansan uguna saxsan markii testi la sameynayo. Dhakhtarkuna wuxuu ku kalsoonaan badan yahay inuu thick and thin film diro intuu rapid test diri lahaa. Waana midka ugu caansan ee dhakhtarku adeegsado. Qodobka koowaad waxaa la yiraahdaa thick and thin film ee malaariyada lagu testgareeyo. 2 RTD waxa la yiraahdo ama rapid diagnosis test. Waana in antigen laga baaro. Antigen testing waxa la yiraahdo la sameeyo. Rapid test waxaa loo isticmaalaa quick option way. Macnaha waa mid fudud oo waqti badan aan ka qaadanaynin. Tusaale ahaan haddii aad daqiiqadeer haysato testiyaal badan oo malaariya ku yimaadaan oo aad ku sameynayso rapid test ama RDT waxaad adeegsanaysaa quick option program. Barnaamijkaagu waa ku fududaanaya. 3 molecular test ama waxaa loo yaqaanaa polymerase chain reaction PCR molecular test waaye. In lagu ogaado nooca parasite-ka uu yahay taasoo dhakhtarka ka caawinayso inuu go'aansado dawada uu ku qori lahaa. PCR ama molecular test waxa uu dhakhtarku ku dirayaa marka uu go'aan ka doonayo si uu dhaqso dawo kugu qoro taasoo kugu habboon. PCR waa qodobka 3aad. 4 antibody test. Antibody test taasoo ah antibody in ahaan loo baaro dhiigaaga. Taasoo uu dhakhtarku ku dirayo inuu ogaado si uu u ogaado macnaha qofkan inuu malaariya hore u qabay ama uu history diagnosis oo malaariya ahaan u lahaa oo waa hore ay ku soo dhacday. Marka wuxuu sameynayaa antibody test ayuu ku dirayaa. 4 drug resistant test. Parasite-yada qaar ama malaariyada qaarkeed waxay iska caabinaysaa ama ay iska celinaysaa dawooyinka. Sidaa darteed dhakhtarku wuxuu ku dirayaa blood test si uu ogaado dawada kugu habboon ayaad qaadan lahayd. Malaariyada marka sometimes waxaa jirta ay iska qariso markii aad test la sameynayo. Marka dhakhtarku wuxuu go'aan ku qaadanayaa inuu blood test caadi ku diro asoo doonayo inuu ogaado parasite-kan si looga ogaado in ay dawadan kugu habboon tahay. Sidoo kale qodobka 6 waa blood test. Additional test ayadoo la sameynayo ama ayadoo la raacinayo testiyo kale waxaa lagu dirayaa dhakhtarku ku dirayaa blood count for panel chemistry. Waxyaabihii chemistry-ga ahaa panel chemistry-ga tirada badnaa mid kamid ah ayuu ku dirayaa si dhakhtarku uu ogaado una xaqiiqsado malaariyada heerka ay marayso. Cudurkan dhibka uu kugu hayo heerka ay joogto. Tusaale ahaan how seriously malaariyada adiga ay kugu tahay si uu u xaqiiqsado ay wuxuu ku dirayaa for panel chemistry mid kamid ah. Sababtoo ah waxaa jira waxyaabo la yiraahdo related conditions of disorders. Marka waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka ogaateen waxyaabaha la xiriira malaariyada qodobada loo sameeyo. Haddii aan dib ugu dulmaro qodobka koowaad waa thick and thin film iyadoo laba slide midna thin laga dhigayo midna thick laga sameynayo. Qodobka 3aad waa RDT oo ah rapid diagnosis testing antigen testing. Qodobka 4aad oo ah polymerase chain reaction ama molecular test kaasoo la ogaanayo nooca parasite-ka uu yahay. Antibody testing kaasoo ah dawada kugu habboon dhakhtarku inuu go'aansado oo ogaado. Drug resistance taasoo ah inay malaariyada iska ka caabinayso dawada ay qaadanayso in kale soo dhakhtarku testi ku habboon oo degdeg kugu qoro.
iyo blood testing oo ah for panel chemistry inuu kuu diro mid ka mid ah iyadoo la raacinayo panel chemistry waxyaabihii la baari jiray panel chemistry-ga, taasoo dhakhtarka u cadeynaysa sida seriously ay kugu tahay malaariyadan. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan rajeynayaa inaan wax badan wadaagi doono insha Allahu tacaala.